السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتين كسور دواد channelkeena fadlan haddaa hore noola joogtay subscribe noo dheh haddii aad hore noola joogtay like share commentiga haddii aad nagu cusub tahane soo dhawaada like-tana meel fog ayayna gaarsiinaysaa subscribe-na inoo dhaha insha allahu tacaala. Maanta waxaan ka hadli doonaa sidee bay u kordhin kartaa hooyada uurka leh iron-teeda ama hemoglobin-teeda ama dhiigeeda. Fasti mar walbo ma ahan sideedii hore qof caadi ma tihid, waxaad tahay qof iska caajisan, iska xanuunsan, wax walba aanan cuni karin. Marka waxaa loo baahan yahay waxyaabo yaryar inaad isku qasabto si dhiigaada mar walba uu ahaado mid sareeya. Waxaan u jeednaa waxaa qaadan kartaa maxay ahayd afakaadhada iron ayaa ku jirto, burtuqaalka ama oranjiga aad ay ugu buuxdaa, maxay ahayd miidka, hilibka gaduudan aad ayay maxay ahayd ugu badan tahay ironta. Sidoo kaleeto seafoodka oo malayga ka mid ah aad ay ugu badan tahay. Cagaarka oo kaleeto broccoliga geedkaas la dhahayo aad ay ugu wanaagsan yahay hooyada inuu iron-teeda soo celiyo. Sidoo kaleeto maxay ahayd sidoo kaleeto waxaa kaleeto sare u qaadi kara dhiigaada maxay ahayd inaad isticmaasho digiraha siba digirta gaduudan oo kaleeto aad ayay usoo celisaa dhiiga cas ama hemoglobin-taada. Calooshan way ku jilcinaysaa maasha Allah. Digirta lama soo gaaro, waa wax aad u wanaagsan oo aan la heli karin wallahi. Digirta waxay la mid tahay hilibka xagga borotiin ahaanta iyo xagga dhiig soo celinta maasha Allah. Marka haddii aad qaadan karto waa inaad qaadataa si uusan mar walba dhiigaada hoos ugu dhicin. Sidoo kaleeto fruitiska oo kaleeto, tufaax oo kaleeto maasha Allah, peanutka ama looska oo kaleeto aad ay ugu wanaagsan yihiin hooyada siyo markay uur leedahay. Waxyaabahaas oo kale dhan dhiigaada way soo celinayaan, waana wax dabiici ah. Haddii aad cuni karto oo isku dayi karto inaad isticmaasho ayaa wanaagsan. Kaniiniyaashan ayaga ayaa ka wanaagsan. Mar walbo kaniini iyo isku mid ma ahan waxyaabaha dabiiciga ah. Waxyaabaha dabiiciga oo adiga marka samaysanayso ayaa aad iyo aad u wanaagsan haddii aad tahay hooyada hooyo uur leh. Maxay ahayd waxaa kaleeto maxay ahayd aad iyo aad dhiigaada usoo celin kara waa egga ama ukunta. aad ayay usoo celin kartaa dhiigaada. Borotiin way leedahay. Maskaxda ilmahana aad ayay u firfircooni gelinaysaa uurkaada ku jira. Sidoo kaleeto waxaa aad ugu muhiimsan hooyada inay iska ilaaliso waxyaabaha stresska ah. Maxaa yeelay stresska jir ahaan iyo maskax ahaanba aad ayuu hoos kugu ridayaa. Stresska inaad iska ilaaliso. Haddii aad stress leedahay oo wax walba aad cunto ma laga yaabo inaad noqoto sidaad jeceshahay. Marka stresska hooyada uurka leh iska yarayso. Inkastoo xaalado iska jiri karaan hooyada ayna ahayn qof degan, qof sideedii hore ah ma aha. Marka waxyaabo fara badan ayaa jiri kara. Marka adigana isku dadaal wax walbo stresskaada sare u qaadayna iska ilaalisaa. Meelaha buuqa aad ka fogaataa. Waxyaabaha aan ku wanaagsanaynin sida meelaha kaleeto secret-ka ama sigaarka lagu cabayo kaleeto iyo waa inaad ka fogaataa si aasan adiga iyo babyga calooshaada ku jira aanan dhib kuu soo gaarin. Marka maxay ahayd mar walbane hal mar haddaad wada cuni sidoo kale mar walba inaad hal mar wada cunto ma wanaagsan. waxyaabaha fiican ayar inaad u isticmaali karto. Marka insha Allah tacaala halahaasi waa inaga maxay ahayd waxyaabaha idin dheernahay idin faa'iideynay insha Allah tacaala. Idinkana waa idin anfici doontaa sidaan rajaynayo insha Allah. mar walbana isku dadaala haddaad tihiin dumar siiba hooyooyinka uurka leh. Dadka caadiga lama mid aha. Qofka caadiga wax kasta ayuu dalaq siin karaa, laakiin maamada hadday uur leedahay wax walba ma cuni karto, mana isticmaali karto. Sideedii horena ma aha. Habiteedkeedana sidoodii hore ma noqonayo. Dhiigeedana sidoodii hore ma noqonayo oo wax walba oo ka hormaado mar kale waa iska cuni kartaa. Laakiin markaani waxaad tahay qof ayaga dhan beeshin iska socda. Ilaah u fududeeyo inta uur leh inta aanan haysana Allah siiyo insha Allah tacaala. ubad saalixiina dumar fara badan oo maxay ahayd dad ka cabanayo waa jiraan xaggaas. Allah u fududeeyo. Marka soo dhawaada idin leeyahay like-tana meel dheer ayayna gaarsiinaysaa. Soo dhawaada si share gareeya si ay u gaarto asxaabta cusub.